بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وهرست إلهي سبحانه وتعالى مهله الله أيان أمهد علين هينا إلهي سبحانه وتعالى إن قد المسلمين إنه نمعي نعمة الإيمان. انت كذب ولا ليال شركا جرائد أي سوقبتين قرب جوكت وعيس عبدي وحان هاد علينها يا رمان أقون يهانين تباشا عقاشة يوغاسية باشا علماء يا رمان انت كسو قيب قادتي شركا جرائد مانتا أنقبنا إنه مانتا أي تاريخ ذو تهي لبدي بشي سدادات لبدا كون يسداد يطبنك نيروبينا أي تاي ماشا أنكو قبنا شركا جرائد ولا ليال ساسو كلا وحان وقوم هاد علين هيا صحافة عالمية سيجارة تيفية قوب جوجة سيدا تيفيجا RTN يونيفرسال هون كابل إيو channel كيوتيوب كقرجقود ساسو كلا ولا ليال انت كذب شركا جرائد waxaan ka hadlaynaa annagoo beelweynta aan soo sheegay magaceeda waxaan ka mid nahay beelaha dawlad deegaanka kuwooda ugu baaxadda weyn dhul iyo dadba kuna kala nool goromayu gorobaali mulli qubi fiiq mulli caano iyo mustaxiil deegaanadaasi waxay ku yaalaan goobo xuduud colaadna nasiib u yeeshay taasi oo u dhaxaysa qabaa'isha oromada iyo Soomaalida degta gobolka annagoo difaaca Soomaalida degta kililka ayaan wax xuquuq haba yaraatee aanan helin sida nolosha asaasiga marka walaalayaal xuquuqaha inay helin qabaa'ishaas waxa kamid kow caafimaad ma haystaan oo qofkii maanta xanuunsada meesha ugu dhow caafimaad loo geenayaa waxa weeyaan degmada fiiq oo u jirta meelaha qaarkood in ka badan 200 kiiloomitir wala layaal waxa kamida inayna haysanin jidad iyadana oo meelaha qaarkood la dhihi karo haduu nabiyullaahi aadam iman lahaa uu garanaya sababtoo waa sidii ilaahay ku khalqay meel haba yaraatee jid ama mid maaragtay lug ha noqoto ama mid gaari ha noqoto midna ma haystaan saasoo kale waxayna haysanin haba yaraatee wax isgaarsiin la yiraahdo isgaarsiin anteeno oo maanta aadan helaynin haba yaraatee qof ilaa oo uu tago meel ugu yar meesha ugu dhow ay u gaarayaan ay u jirto 30 kiiloomitir meelaha qaarkood saasoo kale walaalayaal waxayna haysanin waxbarasho mid maaragtay hoose iyo mid sare mid diineed iyo mid maadi midnaba ayna lahayn iyadana dhanka xuquuqda dadkaasaan soo sheegay halkaas ayay ka joogaan mayu waxa mara wabiga la yiraahdo erar ee loogu magac daray ama loogu magac bixiyay gobolka erar biyihiisa wabiga isaga waxa loo qaadaa degmooyin u jira degmada la yiraahdo mayu 150 kiiloomitir oo lagu waraabiyaa degmadii uu dhex maraya wabiga isaga ihina waxay ku cabaan dhabar ayaa loogaga dhaamiyaa wabiga isaga iyo dameer taasuna waa cadaalad darro una aqbalin aqliga saliimkiihi dhanka maamulka hadaan u soo daadago walaalayaal degmooyinka iyaga soo sheegay dhulkaas aan soo sheegay ee aan deganahay haba yaraatee kuma le kabinetka ama golaha sare ee maamulka kililka haba yaraatee wax ay ku leeyihiin oo noogu jiray ma jiro iyadoo ay dadkaas soo yihiin ay xuquuqdoodii xaqiran tahay waxbarasho xuquuqdoodii caafimaad xuquuqdoodii biyo xuquuqdoodii nololeed dhammaan ay xuquuqdoodii maamul ay xaq u lahaayeen dhammaan ay xaqiran tahay ayaa walaalayaal markii hadda maamulada la qaybinayay ama degmooyinka la magacaabay inaan haba yaraatee xaqooda inayna dawladdu fiirinin saadarteed sidii xuquuqda ahaan jirtay waxay damceen inay si mudaharaad nabadeed ay ku muujiyaan dadka iyagiihi dareenkooda ama dawladooda ay u muujiyaan inay
inay xaqoodii maqan yahay una sheegaan si mudaaharaad silmi ah sida caalami ahaanba u dhigan dad marka huwan dirayska dawladda oo ciidankii dawladda ah ayaa waxay ula dhaqmeen si waxshinimo ah oo bini aadantinimadu ayna aqbali karin waxaa hadda jira inay dhacday dad degmada la yidhaha simane dad mudaaharaadaya oo dumar iyo caruur iyo odayaal ah inay xabad si toos ah loola dhacay oo maanta uu buuxo dhaawacoodii degmada fiiqeed saa darteed walaalayaal annagoo ah qurba joogtii beelweynta jidla khaas ahaan wacays cabdi waxaanu aad cod dheer ku cambaaraynhaynaa tallaabada foosha xun ee lagula kacay dadkaas iyaga ah ee shacabka ah ee birmageydada ah ee dumarka ah ee caruurta ah ee xuquuqdoodii inay cabiraan damacsanaa waxaanuna ka codsanaynaa maamulka mid guud oo federaal iyo mid degaan oo gobolkaba si degdeg ah in wax looga qabto isla markaana dadkii dembiga iyaga ah ee xasuuqa iyo dhibaatada iyaga u geystay shacabka iyaga ah in cadaaladda la hor keeno isla markaana dadka iyaga ah xuquuqdooda iyo codsigooda ay mudan yihiinna loo qiimeeyo loona maaragtay dadka iyaga ah waxay u baahan yihiin ay dawladdu si degdega ugu dhaganuglaato marka walaalayaal taas intaas haddaan kaga soo laabto degmada kale ee labaad waa degmada iyadana qubi degmada qubi waa degmada anigan idinla hadlaya ee saxaafadda hadda hortaagan aan ku dhashay weeyaan degmada iyadii waa degmo aad u baaxad weyn waxaana hoos yimaada in ka badan 9 qabale ayaa hoos yimaada degmada iyadii haba yaraatee wax nolol ah oo intii aan soo sheegnay midna ma haysato marka waxaan dhihi karaa dawladdu xuquuqdoodii mayna hilmaamin bal waxay hilmaamtay jiritaanka dadka iyaga ahaa ee meesha iyada ku noolaa marka saa darteed waxaan dhammaan ka codsanayaa xuquuqul aadamaha ah mid local oo mid maaragtay wadanka dhexdiisa ah iyo mid dibadda aba inay dadka iyaga xuquuqdoodii si degdeg ah loogu qiimeeyo isla markaana dawladdu ay dadka iyaga hadalkooda iyo codsigooda ay ugu dhaganuglaato waxaan aad mar labaad ugu mahad celinhayaa intii soo qaban qaabisay shirkan jaraa'id culimada iyo aqoon-yahaninta iyo cuqaasha qurba joogta khaasatan dalkan Kenya magaalada Nairobi sida mar labaad waxaan u mahad celinayaa walaalaha sharafta leh ee saxafiyiinta ah ee shirkan jaraa'id iyaguna ka soo qayb qaatay ee soo aqbalay maartay codsiganagi dhamaana waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ama ba'd waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa bahda warfaahinta ee meesha la isugu timid waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dhalinyarada iyo aqoonyahanada beesha oo arrimahan isku taxallujiyay si loo qaban lahaa anigoo ka hadlaya magacooda ana odayaasha ugu weyn odayaashooda waxaan aad iyo aad uga xunnahay annagoo horeyba u dulmanayn annagoo waxba ku haysan deegaanka annagoo dadkaygu maaragtay u hawn dad dagaal iyo hawl uu loo adeegsado dhaqaale laga qaado dagaal loo adeegsado in haddana waqtiga isbeddelka ee socda oo ka bilowday dowladda Itoobiya guud ahaan wixii aan xaquuq u lahayn inaan sideeda waxba laga soo qaadin taas oo keentay degmooyinka aan soo sheegnay oo beesha jidle ay degan tahay laga soo bilaabo Laakida Qubi Mayu iyo Muli Caanood ilaa mustaxiil oo tarafka ugu dambeeya maaragtay Soomaaliya ku taala wax la xusaba aan laga soo qaadin marka ay meelihii muhiimka ahaa oo dadku ay waxtabanayeen ay sugayeen inay bal ra'yigooda soo bandhigaana xabad loogu jawaabay xabadda wixii sameeyay waxaanu haysanaa oo doonaynaa inay ka hadlaan oo wax ka qabtaan mas'uuliyadda kilaka joogta dadkaasi dadka iyaga u shaqeynay ahayn dadka ka marqaadanay ahayn waxa kale oo aan leenahay dadka siyaasadda isku sheegaya ama dawladda ku jira waxaanu aad iyo aad uga codsanaynaa oo aanu ku dhiirigelinaynaa waxa naga maqan inay u raadiyaan dadka waxa naga maqan ee dadku u raadiyaan waxa kale oo aanu leenahay beesha caalamka kilalka shanaad dawladda federaalka aan codsanaynaa dadkaas oo meesha godoonka xuquuqda ay lahaayeen in aad iyo aad maartay loo fiiriyo looga hadlo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa horta saxaafadeed wixii oo ka soo qayb qaatay meesha oo idaacadaha oo taad uga soo qayb qaatayna idin mahad celinayaa aad baan u mahadsantihiin salaamka bacdi
وحوي أنا يعني أضياش الرقم كبيش جلة أنا مثلي يوم مجعص حنبارسن وحان آدو عن بارينيا فالكي حماء اللوج جيسي دقموينكا دقمة يعني سمانة dadkii loogu geystay gumaadkii xumaa ee foosh xumaa dhalinyarada iyo ubadkii iyo ilmihii yareeyaa iyo odayaashii iyo dhaqankii dhammaanba loo geystay yaan aad u cambaareynaya wixii horta u geystay magacaana beeshii oo ka soo jeedaan gobolka la yiraahdo Fiiq ee ka soo jeedaan degmada la yiraahdo Ishaq Mulqaamayo ee ka soo jeedaan degmada la yiraahdo Baabili ee ka soo jeedaan degmada la yiraahdo Baari oo ka soo jeedaan Qombi iyo ka soo jeedaan xadiidka isku xidha Addis iyo bahalkii Dardhabe ka soo jeedaan oo meel walbana hataa oromada hataa dhibaatooyin waaweyn u geysatay waxaan aad u cambaareynaa dadkaas iyagoo haddaba dagaal iyo ku jiraan in haddana yani kililka dhexdeeda maleeshooyinka hadda yani ay degmada dadka shacabka ay ku gumaadeen oo u geysteen gumaad xun yaan horta aad u cambaareynaa dadkaas xuquuq ay hadda awal bahaysaan male yani waxaan farayaa wixii gumaadka geystay tallaabada laga qaado oo si degdega u keenaan maxkamadda yaan u baahannahay taas baan hadda ka jawaabaynaa marka waxaan rabnaa hadduu alla yiraahdo in dadka si degdeg ah jawaabtaas laga bixiyo beelihii deganaa deegaankaasna ka guntadaan oo foolxumadaas ka digtoonaadaan kana foojignaadaan sida awal bay isu difaaci jireen oo oromo hadday noqoto difaaciyeen wax walba ay ka jawaabaan aan rabnaa wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh